siyaasi Cabdinaasir Maxamed Jaamac Ilkadigir oo ka soo jeeda degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka hadlay xaaladaha abaareed ee ka jira degmada Badhaadhe iyo deegaanada hoos yimaada isagoona sheegay in biyo la'aan ay ka jirta degmada Badhaadhe iyo deegaanada hoos yimaada uuna sheegay in halkaasi xoolo badan ay ugu dhimanayaan biyo la'aanta ka jirta awgeed dhanka kale siyaasi Cabdinaasir Maxamed Jaamac ayaa baaq u diray maamulka degmada Badhaadhe kan gobolka Jubbada Hoose wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka dowlad goboleedka Jubbaland iyo cid kasta oo gacan ka geysan karta wax ka qabashada abaaraha ka jira deegaanadaas. runtii waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin muhiim ah oo deegaanka ku saabsan oo abaara ah. arrintan ka hadlayna waa degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose. run ahaantii deegaankaas waxaa ka jirta abaar aad u ballaaran oo saameyn weyn ku yeelatay bulshada halka ku nooleed iyo xoolihii deegaanka joogay oo abaar u la'aanaya. waxaan rabaa inaan baaq u jeediyo oo muhiimadda ugu weyn ee shirkan jaraa'id u yahay sidii dadka ay u heli lahaayeen gurmad ballaaran oo ka yimaada qaybaha bulshada maamulka iyo cidda mas-uuliyadda u haysa dadka. run ahaantii degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose waxay ka mid tahay deegaanada gobolka Jubbada Hoose. waa dhul muhiim ah oo masaafo ahaan dhul aad u ballaaran ah 360 kilomitir ah population iyo dad fara badan ay ku nool yihiin. waa dhul dadka ku nool ay xoolo dhaqato yihiin. mar haddii dadka ay xoolo dhaqato yihiinna waxay u badan yihiin inay mar kasta xaaladda abaaraha ay u sahlanaadaan. waxaa jira deegaanada ugu badan ee abaaruhu ay saameeyeen. hadda waxaa jirta abaaro dhulkan la yiraahdo Kulbiyo area-deeda ilaa dhulka miyiga fog ah aad bay biyo la'aan uga jirtaa oo dhammaan biyihii waraha way dhammaadeen. xoolihiina xanuuno kale u la'aanayaan oo ku cusub deegaanka. waxaa la filan karaa haddii Allah subxaanahu wa tacaala uu sarro degdeg u keenin in maaragtay deegaanada kale ee degmada ka mid ah ay iyaguna abaaraha saameeyaan oo inta yaray hadda waraha ay biyaha ku hareen ay maaragtay iyagana dhamaadaan. si arrintaa looga baaqsado oo maaragtay mas'uuliyadda loo qaato dadka siday u heli lahaayeen gurmad waxaa laga maarmaan ah in marka ugu horeysa maamulka degmada Badhaadhe qaata mas'uuliyadda dadka gurmadka siday u heli lahaayeen. sidoo kale waxaa mas'uuliyadda qaadanaya maamulka Jubbada Hoose gudoomiyaha iyo maamulkiisa. sidoo kale waxaa mas'uuliyadda qaadanaya wasaaradda gargaarka. sidoo kale waxaan baaq u jeedinayaa qof kasta oo xil u hayo ummadaas si mas'uuliyadda aad u gudataanna waxaa 1 iyo 2 iyo 3 idin ah inaad u istaagtaan arrintaa oo dadka badqabkooda iyo caafimaadkooda aad ka shaqeysaan. baaqan uu diray Cabdinaasir Maxamed Jaamac Ilkadigir ayaa ku soo aadaya xilli abaaro baahsan ay ka jiraan deegaano badan oo ka tirsan Soomaaliya. Mulid Cabdi Kulmiye warbaahinta Star magaalada Kismaayo.